Hindiya waxba kuma soo baran, Malaysia waxba kuma soo baran, Mareykanka waxba kuma soo baran. Waxaan wax ku soo bartay oo aan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho. Ismaan Maxamed Maxamuud waa wiil Soomaaliyeed oo wax ku soo bartay magaalada Muqdisho. wuxuu dhawaan ka guuleystay dad badan oo wax ku soo bartay dalal ku yaala caalamka kadib tartan ka qabsoomay xarunta shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo uu horey uga shaqayn jiray iyadoona hadda la sii dalacsiiyay. intii muddo ah waxaan ka shaqaynayay shirkaddan Qatar Airways. waxaan ka soo qabtay position kala duwan ama yani heerar kala duwan ayaan soo maray. markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay office agent, kadib waxaan noqday team leader ilaa maanta oo qisadii aan ka sheekeysanayna ahaa supervisor noqday. marka ma aadin aniga meel ka baxsan dalka, kuma soo baran meel ka baxsan dalka, waxba kuma soo baran. waxaan ku dhashay aniga kuna barbaaray magaalada Muqdisho. haddaba dhalinyarada dalka wax ku bartay waqtigii burburka kadib ee dhalinyarsan aqoonta ay barteen ma tahay mid la jaan qaadaysa dalalka caalamka. niyow qisada aan rabay inaan marka la wadaagno dhalinyarada waxay tahay oo aan rabno in aan u waadixino shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba gobol walba ka joogan Soomaaliya. waxbarashada Soomaaliya taala waa midda maanta i gaarsiisay inaan noqdo ilaa heer supervisor aan ka noqdo 5-star airlines shirkadaha caalamka maanta ugu dheereeya uguna awaadiska ama abaalmarinta badan uguna serviceka badan ee Qatar Airways inaan ka noqdo supervisor. waxaan wax ku soo bartay maxadyo. waxaan wiliba xusad mudan oo aan darwisho raba inaan ku sheego awood uma lahayn inaan dhameystirto jaamacadeedii waayo waxaan noqday markaan soo kacay oo aan waxbarashadii aan dawliga ahayn aan wax ka bartay oo jaamacadii galay waan guursaday. marka guurkeygii qoyskeygii iyo jaamacadii labadii waan isku keenay waay taasoo ii suurta gelin weysay inaan sii wato jaamacadeeda. waxaan ka mid ahay dadka la yiri ama la oran karaba waxay ku dhacday qabti waayo foomon anoo ah ayaa dawladda Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee ayaa qabti ugu dhacday. kadibna waxaan waxbarashadeedii aan ku dhameystay oo ku soo qaatay private ilaa heer aan ka noqdo macallin luqadda Ingiriiska ah. Axmed waxa xusud mudan inaan bartay luqadaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga, sidoo kale luqadda Carabiga ah. khayr Allah siiyo macallinkaygi Qaasim Axmed Sahal Qaasimi oo hadda magaalada Muqdisho joogo oo iga saaciday. waxbarashadeedana sidoo kale iga soo saacideen maanta heerkan i gaarsiisay inaan la tartamo rag mastered iyo degree iyo caalamka ka wadi mid Europe iyo Africa iyo Asia ka wadi inaan la tartamo. waxbarashadeedana waxa iga gacan qabtay oo soo saaciday waxa kamid ah Maxamed Xasan Wehliye Ilkacse waa maamulihii macadka Gaheer magaalada Muqdisho iyo Maxamed Axmed Tolman mahadaha ka gaartay. dhanka computerka waxa xusad mudan Cabdirashiid عرطن iyo Ibrahim Xasan Xuseen iyo Ali Xasan rag badan oo isla shaqeyn jirnay macadkii aan wax ku soo bartay isla markaasna aan macallin ka soo haynay wax badan iga soo qabtay Axmedow. kadib markii ay meesha ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay arintaasi saameyn weyn ku yeelatay guud ahaanba dalka waxaana meelaha dhaawac soo gaaray kamid ahaa waxbarashadii dalka. haddaba taasi waxa barbar socday dadaal ay la yimaadeen bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan macallimiinta taasi oo keentay inaysan meesha ka wada bixin fursadihii waxbarasho ee gudaha dalka ka jiray. sidoo kalena waxay xoogga saareen inay noqdaan kuwa tayo leh iyadoona gudaha dalka lagu baran karo luqado kala duwan. xaqiiqatan markii wadanka aan joogo waxaan aaminsanaa waxbarashadeeda inaysan soconaynin, laakiin markii aan imtixaankii fadhiistay oo raggii Europe iyo Asia India meel walba ka yimid jaamacad soo batay imtixaankii la fadhiistay waxaan noqday waxa igu horeysay laba qofood kaliya igu horeysay kaalin saddexaad aan galay Axmedow. dadka Soomaalida ah waa dad u sahlan tahay luqad walba ay bilaabaan inay bartaan inay sida ay tahay u bartaan waana dad meeshay tagaan ba luqadda ay hore kala qabsada oo aad iyo aad maskaxdooda u furan tahay. waxyaabaha ii sahlan waxa kamid ah Axmedow aniga waxaan ka soo baxay macadkii ka soo bartay computerkayga asaasiga macad la wada yaqaan magaalada Muqdisho ku yaalo Bakaaraha Sokomin. wax badan buu ii qabtay waayo imtixaanka computerka markaa fadhiistay oo project la siiyay oo liir Excelka ku taariyo accesski si easy ah ayaan u diyaariyay. waxyaabihii ko iga saaciday kamid ah waxa kale oo kamid ahaa in luqadda Ingiriisiga ahaa aan aniga Muqdisho ku soo bartay markii dambena magaalada Muqdisho private ama macallin kaga ahaa wax badan iga saaciday oo writingkii iyo meelaha banaan buuxidii markii la keenay foomamkii aan noqday ninka koobaad aan noqday xagga grammarka iyo wiliba dhigaalka Axmedow. si kastaba waxaan meesha ka maqnayn inuu qofku la yimaado dadaal iyo hiigsi wanaagsan
taasi oo u horseedi karta inuu guusha gaadho. waa walaalkiin Axmed Darwiish oo idin leh nabadgelyo.